cidda u nugul oo u faruuran oo mar walba culayskaas uu saaran yahay oo qarniga dhabta ah degan ama hoonka dhabta ah degan waa reer Puntland taariikhahaas isdaba socday runtii waxay ahaayeen dhabar adayg ay u soo mareen dhowr marxaladood oo Puntland saameyn ku yeelataan raan waxir inaan ka cus loolanka reer Puntland mar walba ku kala qaybsanayaan laakiin si xigmad leh ku soo badbaadiyeen marka fiirisay shirkii qaahiro ku burburay oo dawladaha waliba geeska marka laga tago dawladaha ajaanibta reer galbeedka ah labada loolanka u badan uu ka dhaxeeyo mar walba waa Masar iyo Ethiopia shirka markuu burburay kooxdii lagu tirinaya inta badan inay Ethiopia u dhowdahay وعبد الله يوسف hogaaminayay afkaartii ka dhalatay in Puntland la dhiso baa saldhig u ahayd Puntland markii la dhisayay aragtida waa lagu kala duwanaa maxamed cabshir wuxuu hogaaminaya koox dhanka carabta u janjartay iyo Masar laakiin dadka reer Puntland xooggoodii markii dambe waxay arkeen inuu yahay qofka munaasabka ah Abdullah Yusuf anu ergadaas aan ka mid ahaa habeenka doorashada lagu dhawaaqay waxa aad dadkii ka soo horjeeday Abdullah iyo aragtidaas ay goosteen inaan doorashadu dhicin oo dagaal dhaco anu qaybtaas aan ka mid ahaa la joogay maxamed cabshir waxaan aad u yaabanahay waa nala hadlay habeen guri hadda aan filaayo hotel Nugaal agaarkiisa abu deganaa magaalada hotel Nugaal xagga wax kama xigin aad buu hadlay dhalinyaro careysan oo dad badan baa waxay aaminsan yihiin in la khashkhashaado hoolka aan la gelin wuxuu yiri aniga iyo intay la socota hadda tala leedihiin hawshaas aan la qaban dalkuna dagaal ka dhicin lana hor istaagin arintaas hadda intii badan israacday waxaan muddo yar kadib boosaaso ku arkay King Kong هوليف dadkii kooxdaas wax ka ahaa oo kulli goostay hadii dadkii Abdullah doorteen inay dalka isaga tagaan fursad siiyaan loolankaas iyo kan maanta jira isku mid way ogaada labadaas muaskar baasayay arta waxa dhistay loolankii kale oo masaaridu saldhigu ahayd isla markii saameyn been ugu yeelatay dad reer Puntland ay wada ogtiin dagaalkii 2001 halka dhacay halkaas uu salka ku hayay markii arta laga gudbay oo haddana Abdullah Yusuf mar labaadkii guuleystay tii 98 ina fikirkiisa baa guuleystay kii 2004 kiisi baa guuleystay waa ogeedeeno dagaalkii maxkamadaha haddana la soo qaaday Puntland waad garanaysaan mowqif adag bay ka istaagtay ilaahayna waa ka soo gudbi waxaan saddex taariikhood soo dhigayaa kan hadda socdana kaas oo kaleeto loolanka socda inay dadku fahmaan hebel iyo hebel baa isaya reer hebel iyo reer hebel baa isaya hebel baa saana arintu waa ka weynta mar walba Puntland waxay ilaalinaysay inay deganaansho ahaato inay Ethiopia waaqic jira weeyay kula dhoolaato nabad in dalkan uusan gelin gacan kale geeska Afrika nabadda waxyaabaha u diiday waxa kamid ah xukunka urursan Ethiopia waxay qaadatay federaal Kenya afayba hadda ka sheekeynaa devolution-ka markay qaadatay baa North Eastern wax la yiraahdo oo la fiirin kara ugu horeysay dhaqaalii baa daadagay siyaasiyiintii Soomaaliya Kenya kor u kacday dhaqaalaha iyo ganacsiga kor u kacay barnaamijyada kor u kacay dad maanta lagu tartamo oo lagu xisaabtamo weeyo oo muhiim ah Soomaaliya wadadaas qaadatay laakiin waxa Soomaaliya inay degto diidan waxa weey kuwa diidan in dalku federaal noqdo maxaa yeelay geeska Afrika hadda tiraahdo waa cadaadinaya dadka Soomaaliyeed way kala qaybsanayaan hadday kala qaybsamaana
quwadaha isku hayaa midba qolo raacaysa haddana kuwo horlo cusub baa soo galay marka waxaan u baahannahay wadadaas adkaysiga reer Puntland ay hore u soo mareen inay wali hayaan haddaanan Puntland dawladnimada Soomaaliya inta u soo sabrin